afo waan gatay afo 1000 share waa $20 87 igu fadhiyaa. kun kulan ku darsaday 27 buu igu fadhiyaa. kaasa 27 buu fadhiyaa. Hadda wuxuu marayaa 2079 2084 buu gaaray. $21 21 21 25 $508 profit ah. waxa waaye ABVO waa ABVO pharma company. hadda move igu xigo waxa waa markuu meeshaan dhaafiro. okay hadda uu soo noqday. afo 1000 share baan gatay 2129 baan gatay. a little bit higher 2129 1000 share 2129 bigu fadhiyaa. hadda wuxuu gaaray 2160. haddaan iska iibinayaa 660. laba kun oo share baan gatay 2192. laba kun oo share 2192 igu fadhiyaa. waa kaasa $104 waa iska gaday. may waxaa iga go-ayo meel khaldan baan ka gatay. khalad baan suubiyey. khalad baan suubiyey. $22 wuxuu ku fadhiyaa 8 cent. waa laba kun oo share.
marka hore intaan sell iri waa soo degay waa ku begmatay oo technical problem baa ku dhacay. So hadda waxaan sameynayaa waan u kaadinaya ilaa uu cabaar kor aado because si uu u boodboodaya ma fadhiyo. maadaama uusan fadhin waxaan sameynayaa waan u kaadinaya ilaa uu gaaro 22:30 meelahaas oo 22:20. I believe inshallah afraad door gaari doono kan. I think afraad door gaaraya kan maanta iga kor. Alright, let's see now. So noqday 22:40. to 30. هذا اسكي يبي لح بقول لح يتوندر يشيء يا بس $600 profit $1,000 net or $1,000 net ما أنت it looks like soo noqon doonaa mise waa tegi doonaa. Right, let's see now. $1,000 waxaan ku gatay $2.10 $22.02 1,000 share. $22 wuxuu fadhiyaa 2 cent. $1,000 kan ku darsaday 21.88 buu fadhiyaa.
okay 22 gaaray oo soo gudoomay labada kun oo share oo haysta waxay u fadhidaa 2188 21 all right let's see at my sugar 21 2 iska iibiyey may gacanta hadda iska gaday $920 faa'iido ah $1920 278 baan ku gatay I believe in 24 gaari doono 2278 buu igu fadhiyaa waa iska gaday laba kun oo ku gatay 2297 2297 laba kun oo share baan ku gatay $22.97 oh look at that waa iska gadayaa $1260 buu faa'iido ii sheegaya systemka ما خدمة تطبيق God. It's okay, why? 2850 laba kun oo galaan gatay 2350 buu igu fadhiyaa 2350 ayuu fadhiyaa $23.50 ayuu fadhiyaa laba kun oo share let's do hadda oodaydi doonaa 24 gaari doona aaminsanahay kan
2346 baad joogaa. Alright, maybe hadduu dhaafi doonaa. Waa kaasaa 58 buu joogaa. hadda hadduu dhaafo 24 na gaari doonaa rajeynayaa. Ase gaday $3,430. dhammaantoodna waa ABVO, waa biotechnology company. I think intaan ku joojinayaa. waa maalinta waxayd maanta November 5 2020 akaatun for u dhaafay wajaar. Look at that. Anyway, intaas uga baxay $3,430. Not bad day. Inshallah, waa inoo beri. Look at that.